war degdeg ah oo hadda isoo gaaray waxa uu sheegayaa in sheekhan aad aragtaan oo maanta salaadii jumcaha kadib khudbad xasaasi ah jeediyay isla markaana si toos ah ula hadlay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro caawal xiray hadalladii sheekhan lagu xiray waxa kamid ah madaxweynaha ayaa habeenkii salaasadii noo yeedhay culimo kala duwan oo wadanka oo waaweyn oo kala firqooyina oo kala qabiilooyina anna aan ku jiro yaanan culimada ahaanin aad buu mahadsan yahay wuu noo warramay heshiisku galay iyo inta dhimanay imika Talaabiib ugu tagayo annaguna waanu waaninay waanu u nasteexayn wuxuu ilaahay nagu ogaabaan sheegay aayaadkan imika akhriyay qaar kamid ah lagu dul akhriyo culimadii noo hadlaysay ku dul akhriyo aad buu ugu waana qaato aayaadka qaar kolka aan akhriyay madaxuusa u qabsanay waanu u sheegnay shariicada alle siday tahay xaqi waanu caday madaxweynaha waxaan ku waaninaynaa shacabkana aan u sheegaynaa heshiiskaasi waxa ku jira waxaanan ku leenahay ilaahay ka cabso oo ha tagino heshiiska saxiix ha tagino heshiiska saxiix haddaba daawadayaal muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay xariga sheekhan maanta jeediyay fariin uu u dirayo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro isaga oo ka digay heshiiska Abraham oo uu sheegay inuu yahay mid gabi ahaanba ka soo horjeeda diinta Islaamka isla markaana madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro markii uu u yeeray ay hortageen ay u sheegeen fadeexada iyo dhibaatada arintan ay leedahay isla markaana ay ka dhalanayso caro Ilaahay uu nooga caroonayo hadii wuxuu leeyahay aanu intaan inagoonan ka wacyi gelin aan ka tagno madaxweynaha wuxuu leeyahay aayado quraan ayaan soo qaadanay waxaana uu u muuqday nin hadalkeen uu ku socdo oo madaxa hoos u raaricinayo marmarna kor u qaadaya haddaba daawadayaal waxaan muuqaalka idinkugu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyay xogta arintan khudbadii uu maanta jeediyay sheekha ay hadalhaynta badan dhalisay kadibna keentay xarigiisa maxay ahayd iyadana waan idin la wadaagi doonaa akhyaaray soo dhawaada marka hore waxaan idinka codsanayaa muuqaalka haduu idin soo gaaro meel dheer inaad inoo gaarsiisaan halkii sheekh ee Hargeysa joogay ee yiri heshiiska Abraham waa mid fadeexad ah isla markaana diinta Islaamka gaf ku ah ayaan la saxiixin madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ka joog in xabsiga la dhigo maxay ka dhigan tahay oo xabsiga loo dhaadhiciyo dad badan ayaa maalmihii la soo dhaafay isweydiinayay maxay culimada Soomaaliland uga hadli waayeen waxyaabaha sida weyn baraha bulshada u haysta laakiin ugu dambeyn sheekhan ayaa ka hadlay balse isagana xabsiga ayaa la dhigay sida ay wararku tilmaamayaan sheekhan waxa lagu magacaabaa Sheekh Maxamed Weli waxaana uu kamid ahaa culimada Soomaaliland haddaba waatan khudbadii uu maanta jeediyay ee hadalhaynta badan dhalisay ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu u diray madaxweynaha ayaa habeenkii salaasadii noo yeedhay culimo kala duwan oo wadanka oo waaweyn oo kala firqooyina oo kala qabiilooyina anna aan ku jiro yaanan culimada ahaanin aad buu mahadsan yahay wuu noo warramay heshiisku galay iyo inta dhimanay imika Talaabiib ugu tagayo annaguna waanu waaninay waanu u nasteexayn wuxuu ilaahay nagu ogaabaan sheegay aayaadkan imika akhriyay qaar kamid ah lagu dul akhriyo culimadii noo hadlaysay ku dul akhriyo aad buu ugu waana qaato aayaadka qaar kolka aan akhriyay madaxuusa u qabsanay waanu u sheegnay shariicada alle siday tahay xaqi waanu caday madaxweynaha waxaan ku waaninaynaa shacabkana aan u sheegaynaa heshiiskaasi waxa ku jira waxaanan ku leenahay ilaahay ka cabso oo ha tagino heshiiska saxiix ha tagino heshiiska saxiix qodobada ugu muhiimsan aan kaaga tagay ee mainka u ah muhiimada number 1 priority number 1 u ah heshiiskan Abraham Accord waxa weey accepting and respecting Israel while refusing Palestinians wa inaad ixtiraamto oo aqbasho jiritaanka Israel refusing Palestinians wa inaad diido Palestine wa inaad diido al-qadiyya al-Falastiniya ilaahay wuxuu yiri muslimka la xiriir gaalkana go Abrahamic Code wuxuu ka dhigan yahay yuhuud la xiriir Palestine go oo cad oo halka kugu tal accepting and respecting Israel and refusing Palestinians wa aqbalida iyo ixtiraamida madax kusidashada Israel and refusing diidida Palestinians Palestine diidideed iyo qadiyadeeda oo la laalo inaan loo damqanin wax la dhaca tadbiic oo carabta la geliyay baa jira Abrahamika korka qoraayo
التطبيع حوي normalization the relation with Israel وإن عادي لقدقو حرير كإسرائيل normalizing the crimes of Israel وإن عادي لقدقو دنبيادة يفرلك أرقاقي حسنمو يدا أرقاقي حسنه فلسطين أرقاقي حسنه هي دنبيادة crimes كإسرائيل سميسو normalizing إن أنا تكتم قني إن أنا تكتم قني waxay ku taala waxyaabaha aan sheegay oo dhami abrahamka kor bay ku yahay waayahay imaaraadka ayaa qaatay ragii ugu horeeyay qaatay kama abrahamka kor waxaan imika ku gelayaa qaybta kale oo ah abrahamic religion oo wali aan la inoo soo bandhigin laakiin tan ka dambaysa say uga dambaysaan ku sheegay imaaraadka ayaa sheekh bashiirow wuxuu qaatay Abraham Accord kan imika ku sharxay Abraham Accord kan imika ku sharxay